khayran sheekh su-aasha kale sheekhow anigoo gloves qaba gacmaha ku xiran ma ku tukan karaa sheekhow af soomaali ma ku ducaysan karaa salaada dhexdeeda alxamdu lilah su-aasha hore haa waad ku tukan kartaa waxay culimmadu ka hadlaan marka la sujuudayo la tukanayo in dhulka la saaro waa wejiga gacmuhu inay bannaan yihiin shardi maaha rag iyo dumartoona marka rag iyo dumarba haddii ay ama galofis gashaan duruuf iyo caafimaadna waa keeni karaa qayb asturaadda ka mid oo gabdhahana waa noqon kartaa waxaa loo diiday gabdhuhu galofis inay xirtaan ama qufaaseynka waa markii xaj iyo cumro la xirto weeye salaada maaha salaada dhibaato mala waxba u dhimi mayso wejigun bay culimmadu isku qabteen inuu bannaan yahay baa fadli badan khilaaf kama jiro laakiin waa inuu bannaan yahay waa qasab iyo qasab ma aha bay isku qabteen oo koofiyadahan la qabi iyo haddii wejigii qayb iyo xijaabkii iyo ka xigaan markaan dhigaya maynaan wejiga dhulka la helaa sida fuqahada shaaficiyadu qabaan cala saxiixi maya xilligii saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku sujuudi jireen waxa la dhihi jiray calaa kuuri lcimaama cimaamad weyn oo duuban oo koofiyadan ka xoog badan bay duuban jireen waana ku sujuudi jireen oo weysada waa kay korka ka masixi jireen nin la yidhi wejigiibay cimaamaddu culays soo saaraysaa ee ka qaadna ma jiraan marka dhibaato ma laha laakiin sida wanaagsan wejiga in la banneeyo weeye su-aasha labaad maxay ahayd af soomaali ma ku ducaysan karaa miyahayd af soomaali haa waa lagu ducaysan karaa laakiin carabiga ka fiican kana kooban ducooyinkii qur-aanka iyo sunnadan aad aqrin kartaa laakiin qofku hadduu inuu ducaysta rabo uusan carabi garanaynin ama ducooyin ku xifdisanaa iyo danta uu ilaahay leeyahay ee duruuf ku taaganoo inuu baryo ilaahay weydiista rabo ay isu qaban waayaan carabiga wuu ku ducaysan karaa markay baahideedu tima soomaaliga waa ku ducaysan karaa iyo luqado kale fuqahadeenu masaa'il badan oo middaa shabahay ka hadlaan tan lafteeda waxa ugu badan ee ka hadlay waa fuqahada xanafiyada oo fiqigii ugu badnaaya markii u horreeyey u baxay ardulcajam oo carabta dhaafay ahaa laakiin fuqahadeennu waxay ka hadlaan qofkii ataxiyaadkii garan waaya carabi ku garan waaya macnihiisana afkiisi iyo soomaaliya luqad kale ku garanaya wuu ku akrin karaa haddii aadan faatixadii af carabi ku akrin karin macnaheedii afkale ku akrin karto waad ku akrin kartaa haddiiba arkaantii salaada markii laga cajisa carabigii luqadihii kale lagu akrin karo midaan arkaanta salaadaba ka mid ahayn oo iska sunan ah inaad ku akrida luqad kale markay xaajada iyo baahideedu timaadaay qiyaaska saxda inay bannaanaatuu keenaya wabilahi towfiiq